sanad wacan ku soo dhawaada daawadayaal warka gurmud media qodobadaad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah ciidamada Kenya oo bilaabay inay ka baxaan gudaha dalka Soomaaliya kadib caqabado soo wajahay al-shabaab oo si la yaab leh uga been sheegay shacabkii ay ku xasuuqeen isgoyska control afwooye maxkamadda ciidamada qalabka sida oo dil ku xukuntay amiirkii dilalka Muqdisho iyo shabaab baxsad ahaa maamulka gobolka Banaadir oo dibadbax ka dhan ah al-shabaab Muqdisho ka iclaamiyay duqeyn culus oo ka dhacday deegaano ka mid ah Puntland haddii aad nagu cusub tahay fadlan daawada subscribe channelkan si aad u hesho wax kasta oo aan channelkan soo gelino intaad maqasheen oo faahfaahsan ku soo dhawaada daawadayaal ciidamada Kenya ayaa bilaabay inay ka baxaan gudaha dalka Soomaaliya dawladda Kenya ayaa lacag 1 bilyan oo shilin ah ka dhintay qarashka ku baxaya ciidamadeeda jooga Soomaaliya taasi oo ah astaan muujinaysa inay bilaabayaan ka bixitaan tartiib ah oo ay uga soo tagayaan Soomaaliya waxaana sidaasi qoray wargeyska Business Daily Africa inkastoo madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta uu dhowr mar ku celceliyay in ciidamadiisa ay sii joogi doonaan Soomaaliya ilaa ay ka noqoto dal nabdoon haddana isbeddelka lagu sameeyay miisaaniyadda ayaa muujinaya isbeddel siyaasadeed wasaaradda maaliyadda Kenya ayaa sheegtay inay ka filayso Amazon in muddo sanadeedka ku eg bisha June 2020 ay u soo celisay 4 bilyan oo shilin ah oo ah lacag uga baxday ciidankeeda jooga Soomaaliya tiradan ayaa 20% ka yar miisaaniyaddii hore ee u dejisay dawladda Kenya oo ahayd 5 bilyan oo dollar dawladda Kenya wali wax waraa kama soo saarin sababta loo dhimayo miisaaniyadda ciidamada iyo inay jirto in ciidamadeeda ay qayb ahaan ka baxaan Soomaaliya hase yeeshee wargeyska ayaa qoray in sababta kaliya ee Kenya ay u dhimi karto qarashka uu yahay in la yareeyo ciidamada joogay Soomaaliya taasoo muujinaysa in ciidanka Kenya ay qayb ahaan ka soo baxayaan Soomaaliya ciidamada Kenya ayaa ku sugan gobolada Jubbooyinka iyo Gedo waxaana xoogooda ay taageeraan maamulka Jubbaland uu majaraha u hayo maxamed Islaam Axmed Madoobe oo ay xiisadi kala dhaxaysa dawladda federaalka Soomaaliya al-shabaab ayaa maalmihii dambe waxa ay kordhiyeen weerarada ay ku qaadayaan gudaha dalka Kenya gaar ahaan gobolka ay Soomaalida degto shacabka Kenya iyo madaxda mucaaradka ayaa horay ugu baaqay in ciidamada Kenya jooga Soomaaliya lala soo baxo si ay u yaraadaan weerarada al-shabaab ay ka geysanayaan gudaha dalkaasi al-shabaab ayaa ballan qaaday in ciidamada Kenya intay joogaan Soomaaliya aysan jooji doonin howlgallada ka dhanka ah ciidamada ay ka fuliso gudaha dalka Kenya ciidamo badan oo Kenyan ah oo ka tirsan howlgalka Amazon iyo kuwa aan ka tirsaneen oo sharci darro dalka ku jooga ayaa gudaha dalka Soomaaliya ka howlgala al-shabaab ayaa waray soo saareen ka been sheegay dadkii ay ku xasuuqeen isgoyska control afwooye ee bilowgii toddobaadkan kooxda al-shabaab ayaa soo saaray bayaan ay ku sheeganayaan in ay faahfaahinayaan qasaarihii ka dhashay qaraxii Sabtidii aan soo dhaafnay ka dhacay isgoyska control afwooye magaalada Muqdisho qoraalka al-shabaab ka soo baxay kuna qornaa luuqadaha Ingiriiska iyo Carabiga ayay ku baahiyeen warbaahinta taageerta waxayna dadka ku dhintay qaraxaas u kala saareen shacab askari iyo ajaanib tirada guud ee dhimashada uu sababay qaraxii control ayay ku sheegeen shabaabka 84 ruux taasi oo ku dhow tirada dawladdu ay shaacisay oo ahayd 81 ruux si kastaba al-shabaab ayaa sheegay in tirada dadka shacabka ah weerarka ku dhintay yihiin 23 taasoo xaqiiqada aad uga fog maadaama dadku ku dhintay qaraxa badankooda ay ahaayeen shacab iyo arday jaamacadeed al-shabaab ayaa tirada kale ee dhimashada ku sheegay 21 booliis ah 6 military ah 9 nisa ah 4 qof oo ka mid ah shaqaalaha dawladda iyo 21 Turkish ah sida loo dhigay qoraalkooda marka laga reebo 23 qof ee shacabka ay inta kale waxay ku tilmaameen kuwa ay beegsanayeen al-shabaab ayaa sidoo kale tirada dhaawac ku sheegay 69 qof taasoo aad uga yar tirada 148 ah ee dawladdu shaacisay waxay faahfaahinta ka soo baxday al-shabaab ku soo aadaysaa iyadoo in ka badan 12 saac markii ay sheegteen mas'uuliyadda qaraxii dadka badan lagu laayay oo sheegashadiisa ka aamuseen muddo dhowr maalmood ah inta la xaqiijiyay waxaa qaraxa ku dhimatay in ka badan 100 ruux halka dhaawaca inta ka badan yahay waxaana sidoo kale jirta dad kale oo wali lagu laayahay nolol iyo geeri dawladda Soomaaliya gaar ahaan hay'adda nisa ayaa ku eedeysay qaraxan mid ka mid ah dalalka caalamka inkastoo nisa aysan sheegin
magaca dalkaasi waxaana warkan ka wariyay war kale oo ka soo baxay mid kamid ah wargeysyada go'afka dheer dalka Turkiga kaasoo sheegay in qaraxaas ay ka dambeysay dowladda Imaaraadka Carabta gaar ahaan dhaxal sugaha dalka Amiir al-Nahyan qaraxii control ayaa ka mid noqonaya mid kamid ah qaraxyadii ugu qasaaraha badnaa ee shacabka wax ka soo gaara Muqdisho ka dhaca al-shabaab oo aan looga baran inay sheegtaan shacabka ay ku dileen ayaa maalin ka hor sheegay in shacab ay ku dhamaadeen qaraxaas tacsin ay u dirayaan maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa xukun dil ah ku riday mid kamid ah amiirada dilalka Muqdisho shabaab u qaabilsan kaasoo adeerkiis horey nafta u dhaafiyay maxkamadda ciidamada qalabka sida Soomaaliya ayaa xukun dil ay xabsi iskugu jiray ku kala xukuntay xubno shabaab ah oo maxkamadda goobjoog ka ahaa iyo kuwa kale oo ka maqnaa gudoomiyaha maxkamadda darajada koobaad ee ciidamada qalabka sida Korneel Xasan Cali Nuur Shoote ayaa dil ku xukumay 3 nin oo maxkamadda goobjoog ka ahaa kuwa oo lagu kala magacaabo Maxamed Xaaji Axmed Salim Saciid Maxamed iyo Maxamed Hashim Carab gudoomiyaha ayaa sidoo kale xukun dil ku xukumay shabaab maqanayaal kuwa oo lagu kala magacaabo Sharmaake Cumar Axmed Xuseen Axmed Faarax Iidle Cabdiraxmaan Mustafa Sheekh Cabdullaahi iyo Ramadaan Cabdiraxiin Mursal Faadimo Xuseen Cali Cadaawe oo loo yaqaan Faadimo Korneel iyo cusub oo kana mid ahayd shaqaalihii dowladda Soomaaliya ay shaqaaleysiisay intuu joogay gudoomiyaha gobolka Banaadir kana mid ahayd ururka haweenka qaranka maxkamadana ku sugnaa shabaabnimo lagu soo eedeeyay waxay maxkamadda ku xukuntay 15 sano xabsi ciidan ah maxkamadda ayaa xukun xabsi daa'ina ku xukuntay in lagu magacaabo Cabdinaasir Axmed Cabdulqaadir Carabi dhammaan xubnahan ayaa waxaa lagu helay inay mas'uul ka ahaayeen dilal qorsheysan oo loo geystay saraakiil militariga iyo booliska Soomaaliya ka tirsanaa iyo waliba dad shacab ah xukunada ay riday maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa ku soo aadeysa maalmo kadib qaraxii dadka badan ay ku dhinteen ee ka dhacay control afgooye Muqdisho mid kamid ah dadkan la xukumay hogaaminayana shabaabka Muqdisho dilalka geysta ayaa horey u dilay adeerkiisu kamid ahaa generaalada ciidanka booliska Soomaaliya gurigiisuna uu ka soo koray maxkamadda ciidamada ayaa maalmihii u dambeeyay dardar gelisay dilalka ay ku xukumayso xubnaha ka tirsan al-shabaab ee lagu soo eedeeyay Muqdisho dadka ku laayaan duqeyn culus ayaa ka dhacday deegaano kamid ah Puntland warar dheeraad ah ayaa laga helayaa diyaarado dagaal oo aan la ogeyn halka laga leeyahay oo weerar cirka ku qaaday saldhigyo badan al-shabaab iyo Daacish ay ku leeyihiin deegaano hoos yimaada gobolka bari ee Puntland goob ay ku sugnaayeen dagaalyahanno ka tirsan Daacish ayaa lala beegsaday duqeynta sidii xaqiijiyeen saraakiil ka tirsan ciidanka Puntland sida ay saraakiisha xaqiijiyeen duqeynta ayaa si gaar ah uga dhacday deegaan lagu magacaabo Madarshan oo u dhaxeeya Boosaaso iyo Gargala dadka deegaanka ayaa sheegay in diyaaradahaas gantaalo ku garaaceen saldhigay leeyihiin Daacish waxaana la ogeyn qasaaraha ka dhashay ilaa haatan si rasmi ah looma xaqiijin duqeymaha lala beegsaday saldhigyada Daacish iyo qasaaraha ka dhashay diyaaradaha dagaalka Mareykanka iyo kuwa Faransiiska ayaa inta badan ka fuliya Soomaaliya weerarada cirka ah oo inta badan lala beegsado goobaha ay ka taliyaan al-shabaab iyo Daacishta Soomaaliya Mareykanka ayaa sanadkan soo dhaafnay 2019 aad u laba jibaaray duqeymaha ula beegsanayo saldhigyada al-shabaab ay ku leeyihiin bariga iyo koonfurta Soomaaliya maamulka gobolka Banaadir ayaa iclaamiyay bannaanbax ka dhan ah dagaalamayaasha al-shabaab maamulka gobolka Banaadir ayaa wuxuu iclaamiyay in maalinta Khamiista ay soo socotay toddobaadkan Muqdisho ka dhaco bannaanbax looga soo horjeeda al-shabaab maamulka gobolka Banaadir ayaa sheegay in bannaanbaxaas uu noqon doono mid weyn oo shacabka Muqdisho ku muujinayaan midnimadooda in meel lagu soo wada jeesto al-shabaab maamulka gobolka ayaa sidoo kale sheegay in shabaab dhibaato ku hayaan shacabka gobolka Banaadir isla markaana shacabka looga baahan yahay inay ka dhiidiyaan al-shabaab ayaa sheegtay qarax dad badan ay ku dhamaadeen ka oo ka dhacay control afgooye Sabtidii aan soo dhaafnay iyagoo tacsi u diray dadkii ku dhintay qaraxa daawadayaal waa naga intaa warkeed kala socoteen Gurmud Media haddii aad ugu cusubtahay fadlan daawada subscribe channelkan